Bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa xulashada wararka aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka waa Khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 24 bisha Juun sanada 2021 qodobada iminkadan daawan doontaan waxaa kamid ah walaac horle oo la xiriira qabashada doorashada Soomaaliya oo soo baxay iyo sidoo kale dib u dhaca doorashada iyo siyaasadaha ku hareeraysanaya daawan doontaan khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay Qoorqoor iyo Cali Gacal hadaba muxuu salka ku hayaa khilaafkaasi wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ayaa daawan doontaan midowga Yurub oo si kulul uga hadlay duqeynta Tigray qodobadan oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad horey noola joogto in sii share garay muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ay ugu bogtaan daawashadaada wacan oo aad ku mahadsantahay inuu ku bilaawno Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu dhawaan madaxda maamul goboleedyada ku casuumay shir loo asteeyay in Sabtida uu ka furmo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana soo baxaya walaac la xiriira in doorashada dalka ay mar kale dib ugu dhici karto waqtigii loo qorsheeyay kol hore shirkaasi ayaa loo qorsheeyay in la isaga wareysto howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii la kala saxiixday 27 May sidoo kale waxaa diiradda lagu saari doonaa dardargelinta doorashooyinka harsan hase ahaatee waxaa sidoo kale la filayaa in mar kale shirkaasi lagu shaaciyo in doorashada aysan ku qabsoomi karin waqtigii loo qoondeeyay loona baahan yahay isbedel lagu sameeyo jadwalka Daahir Qaryow Isaaq oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa isagoo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaa la hordhigay su'aal ku saabsan waxa laga filan karo shirkaasi uu cilaamiyay Ra'iisul Wasaare Roble Daahir ayaa waxa uu sheegay in sida uu qiyaasiyo dib u dhac uu ku imaan karo shirkaas iyo guud ahaan doorashada inkastoo sida uu qabo haatan madaxda ay ka dhex jirto xasilooni siyaasadeed oo wax badan ka bedeshay shakigii iyo cabsidii ay qabeen dadka Soomaaliyeed tan iyo markii uu dhacay heshiiskan wax weyn oo muuqda lama qaban laakiin madaxda waa inaan u garaabo sababtoo ah xasilooni siyaasadeed oo hore u socod leh ayaa la helay gudiyadiina waa la soo xareynaa hadda wixii ka dambeeya waxaa laga wada hadlayaa waxyaabaha xasaasiga ah ee dib u dhigi kara doorashada ayuu yiri Daahir Qaryow oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu qabaa in heshiiskii ay gaareen madaxda uusan ku dhaqan gali karin waqtiga loo qorsheeyay isla markaana ay ku qasbanaan doonaan in waqti dheeraad ah lagu daro Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dhawaan casuumad rasmi ah ayuu u diray madaxda golaha wada tashiga qaran si maalinta Sabtida ee soo aadan ay isugu yimaadaan shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho casuumadan waxay timid kadib kulan ay qadka Zoom-ka ku wada yeesheen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada kaas oo lagu go'aamiyay in la isugu yimaado gudaha magaalada Muqdisho si arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabihii u qabsoomay looga wada hadlo khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay Qoorqoor iyo Cali Gacal madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas ayaa saacadihii u dambeeyay waxaa si weyn ugu dhex qarxay khilaaf xoogan oo la xiriira doorashada lagu wado inay ka qabsoonto dalka sida xulashada wararka uu ogaaday hogaamiye Qoorqoor iyo gudoomiye Gacal ayaa waxa uu khilaafkooda la xiriiraa xubnaha ka imaanaya maamulka Galmudug ee aqalka sare kuwaas oo uu madaxweynaha rabo inuu si madax banaan u maamusho halka Gacal uu ku doodayo in si daahfuran looga shaqeeyo xubnaha Galmudug ee aqalka sare ay tiradooda dhan tahay ilaa 8 xubnood ayay hanaanka xulistooda ka taagan tahay maamulkaas midaasi oo sare u qaaday guuxa ka dhex taagan baarlamaanka iyo madaxtooyada Galmudug 8 xubnood ee ka imaanaya maamulka Galmudug ayaa waxaa dooranaya baarlamaanka maamulkaas waxaana dood ugu adag ka taagan tahay in kuraasta 8 ah loo xiro shakhsiyaad gaar ah oo uu gadaal ka taagan yahay Qoorqoor iyo inay noqoto mid daahfuran oo loo tartami karo madaxweyne Qoorqoor ayaa ku doodaya in hawsha doorashada iyo abaabulkeeda ay u xil saaran tahay xukuumaddiisa isla markaana aysan jirin door badan oo ku leeyahay baarlamaanka midaasi oo ka careysiisay Gacal oo isaga qaba
in mas'uuliyad ay ka saaran tahay hanaanka xulista xubnaha ka qaybgalaya doorashada. Si kastaba, khilaafka ka dhex qarxay Qoorqoor iyo Gacal oo xilligani maraya meel sare ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa loolanka adag ee mas'uuliyiintu ugu jiraan in xubno muuqda ku dhex yeeshaan golayaasha cusub ee soo socda. Midowga Yurub ayaa si kulul uga hadlay duqeynta Tigray. Midowga Yurub oo si kulul u cambaariyay duqeyn shacab ku dhamaadeen oo ka dhacday gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala Tigray ayaa ugu baaqay beesha inay hurdada ka toosto. Qoraal ka soo baxay Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in wax aan la aqbali karin ay tahay in shaqaalaha caafimaadka loo diido inay gargaar u fidiyaan dadka ku dhaawacmay weerarkaasi dhanka cirka oo lala beegsaday suuq rayid ah. Bayaanka ayaa lagu yiri Midowga Yurub wuxuu si adag u cambaareynayaa beegsiga ulakaca ah ee loo geysto dadka rayidka ah. Tani qiil looma samayn karo dhinac kasta ha noqotee, waxayna ka hor imaanaysaa sharciga caalamiga ee bani'aadanimada. Xadgudubyadaasi qiil looma heli karo iyadoo la adeegsanayo ilaalinta midnimada dhuleed ee Itoobiya. Dood ahaan, haddii la xaqiijiyo xanibaadda ambalaaska ee isku dayaya inay gargaar caafimaad u fidiyaan dhaawacyada kadib duqeynta, waa mid aan la aqbali karin, ayuu ururka tibaaxay. Midowga Yurub ayaa tibaaxay dhaqanka noocan ahi wuxuu xadgudub weyn ku yahay heshiiskii Geneva iyo sharciga caalamiga ee bani'aadanimada. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu cadeeyay waxaan dib u celinaynaa baaqii degdega ahaa ee ahaa in xabad joojin degdeg ah laga sameeyo Tigray iyo gargaar bani'aadanimo oo aan xadidnayn lana gaarsiiyo dhammaan dadka ay saameeyeen iska horimaadka gobolka. Tan iyo November 2020, gobolka Tigray ayaa wajahaya mowjado colaado ah kuwaasi oo galaaftay nolosha boqolaal ruux isla markaana guryahooda ka barakiciyay kumanaan kale sida ay sheegtay qaramada midoobay. Waa tahay saaxiibayaal, waxaan halkan ku soo afmeerayaa wararkii aad kala socoteen xulashada wararka. La socodkiina codoon iyo la jaanqaadkiina wacan waad ku mahadsantihiin. Nabadgelyo.